wasiirka wasaaradda amniga qaranka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo ay gurbihiisa fadhiyaan taliyaha ciidanka nabad sugidda Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaloshe taliyaha ciidanka booliska Jenaraal Cabdixakiin Siciid Saacid oo shir jilaayeed ku wada qabtay xarunta taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa waxay digniin u direen dadka taageera kooxda Al-Shabaab kuwaasi ugu digeen inay taageero u muujiyaan kooxdaasi waxayna tilmaameen cidii lagu arkay inay taageero u muujinayso mid dhaqaale amba siyaasadeed lala tiigsan doono maxkamad lagana qaadayo tilaabo waafaqsan sharciga marka haddaan 2 iyo 3 ka sheego go'aamada waxa ka mid ah waxa dambi ah ama mamnuuc ah nooc kasta oo taageero lagu siinayo nimanka argagixisada ah sida ganacsi siyaasad qarinta meel lagu qarnayn shabaab qoodintooda barbar istaaga la xiriirka la shaqeynta niido dhisada ama moraal dhisada marka waa mamnuuc dawladdu Soomaaliya mamnuucay tiri waxa talaabo sharci waafaqsan laga qaadaya cid kasta oo ururada argagixisada ah u aqoonsato maamul jira waxaan ka warqabnaa in dhaqaale aad u fara badan oo magacyo kala duwan loogu yeero ay ka soo galaan ururada argagixisada sida shabaab qaybo kala duwan ee bulshada ah lacagaas waxa loogu yeeraa taakulayn waxa loogu yeeraa sakawaad waxa loogu yeeraa ganaax waxa loogu yeeraa taakulaynta mujaahidiinta waxyaabo fara badan ayaa loogu yeeraa waxaana laga qaadaa cid kasta oo hanti ay ku tuhmayaan waan ognahay in kooxaha argagixisada si joogto ay u cabduuleen camburna ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed baadna ay ka qaataan waxaan ka warqabnaa baadaas ka sokow ganacsato iyo maalqabeeno fara badan oo ilaa xad ku qanacsan fikirka Al-Shabaab inay jiraan oo ku dhiirigeliya ganacsato iyo dad kale oo Soomaaliyeed dhaqaale leh in ay si sahlan u taakulayaan waxaan ka warqabnaa in nidaamkeen isgaarsiinta xawaaladaha iyo habka lacagaha loo kala wareejiyo inaysan noo nidaamsanayn lacag aad bixisid in lagu laayo dad aan waxba galabsan waxaad arkaysaa in aysan islaamnimada waafaqsanayn bini'aadanimada aysan waafaqsanayn taasoo mar walba damiirka qofka bini'aadanka dhibaysa tan labaad aakhiradaada iyo adduunkaaga midna uma fiicna dambiyay u tahay in aad bixisid lacag xaaraana oo waxay ku salaysan tahay qalbi ahaan aad ogeyn ayadoo la fulinayo amarka iyo awaamirta shuruucda dawladda waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed in laga waantoobo ficiladaas shuruucdu ay tilmaamayso adduunkuna uu aqoonsan yahay koox argagixisa in aan la siinin wax ah taageero ama aan la siinin dhaqaale iyo taakulayn midna wixii hadda ka dambeeya waxaa la fulin doonaa hay'adahu fulin doonaan sida sharciga waafaqsan cid kastoo lagu helo in la horgeeyo maxkamadda sharciga u leh sidoo kale waxaan ognahay dhibaatada ay geystaan waxay u geysanayaan waa ganacsatada iyo ummadda iyo hooyada aan waxba galabsan intii dhacday ugu dambeysay oo qaraxya oo ka dhacay magaalada Muqdisho iyo goobo kale dal ka mid ah kulligood haddaad dib u fiirisid waxaad arkaysaa waxay ku waxyeeleeyeen dad iska farfadhiya dariiqa oo waxba galabsan kulamadii ugu dambeeyay golaha wasiirada ayaa looga hadlay maalgelinta kooxda Al-Shabaab iyadoona golaha ay xaaraantinimeeyeen in la maalgeliyo kooxdaasi